Bismillahi raxmaani raxiim. Waxaan rabaa wax yar inaan dul istaago heshiiskii dhawaan ka dhacay dalka Turkiga oo buuqa badan dhaliyay oo ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 97 boqolkiiba 98 sida la ogyahay ay shaki weyn ka muujiyeen. Shakigaas oo soo taraya ilaa iyo shalay ilaa iyo habeen hore ilaa iyo xalay. Waxaan arkaynay wasiir dowlihii arrimaha dibadda Cali oo Addis Ababa jooga asagoo ay la socdaan weheliyaan ninka sirdoonka haysta shan bilood la yiraahdo. Tiimka Xasan Sheikh wuxuu kala u diray magaalada Kaahira wasiirka arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Axmed Fiqi. Arrinka shakiga weyn ku gadaaman yahay waxa weeye in Ethiopia ay badda cagaha soo geliso ayay qorshe noocaas ah ayay dardar gelinayaan ayadoo dalkii ay ka socdaan dagaalo sokeeye ayadoo maamulada qaar lagu duulayo ayadoo waxa weeye dastuurkii iyo wixii heshiiska lagu ahaa aan la dhammaystirin ayadoo waxa weeye ilaahay intuu ku roon yahay waxa weeye xuduudaheennii ciidamadii joogay Ethiopiaanku ay leynayaan oo ay sharaf darro nagu tahay ayadoo maalintaas dhiiggeenii askartii Soomaaliyeed uu daadanayo waxa weeye in Addis Ababa loo duulo oo Ethiopiaanka la yiraahdo sharafteena ha ku xadgudbinina oo waxa weeye wadankii oo kala qoban oo intaasoo maamul goboleed oo aan dowladda la shaqeynayn meeshii dadka laisku raadin lahaa oo laisu keeni lahaa oo dib u heshiisiin la qaban lahaa oo waxa weeye constitution wanaagsan oo ummaddan ku badbaado la samaysan lahaa. Waxaa loo dhaaqay dowladdan xilka uu ka yahay madaxweyne Xasan Sheikh horena waddanka usoo maray inkastoo ceeb iyo sharaf darro ay nagu ahayd in mar labaad uu nagu soo noqdo oo ummadda Soomaaliyeed uu soo hor istaago asagoo wixii lagu eedeeyay musuqmaasuqa iyo sharaf darrada sameeyay la ogaa iyo hantidii uu boobayay iyo kursigu ku talax tegay sidaa daraaddeed wixii meesha ka dhacay inaysan doorasho ahayn oo doorasho ceeb ay ahayd qaabka u dhacday qaabka loo soo abaabulay waxyaalo badan oo ummadda Soomaaliyeed is hilmaameen baa jira oo nabro badan ku yaala. Marka madaxweyne Xasan Sheikh iyo tiimkiisa markay meesha yimaadeen tiimkiisa hore soo celiyay ragga u badan 75% wixii boobkii baa la bilaabay inkastoo ay joojiyeen dadka ka soo horjeeday ay leyn jireen siyaasad ahaan uga soo horjeeday qofku doona ha ahaado. Marka ayadoo dhibkaas oo dhan uu jiro tiimka Xasan Sheikh waxay bilaabeen inay dhulkii iyo hantidii ummadda ay boobaan meeshii laga sugayay dalka inay dhisaan oo ummadda isku wadaan oo ummadda hooyo iyo aabe ay ka dhigaan beelihii deganaa gobolka Banaadir ay heshiisiyaan ummadda Soomaaliyeed dib u heshiisiin gogol u fidiyaan culimada iyo aqoonyahanka iskugu yeeraan siyaasiyiinta iskugu yeeraan waxa weeye halkan isku cafiyo oo bal ilaahay loo noqdo. Waxaas oo dhan madaxweyne wuxuu ka doortay qof qaac in meel walba kabaha laga jaro maxaa si waagu markuu beriyo maxaa dhil haysaa maxaa cusub xagee wax ku jiraan baa xafiiskii lala soo fadhiisanaya maxaa ciidan la hormariyaa maxaa waddo la dhisaa maxaa koronto meel la geliyaa maxaa biyo la keenaa maxaa mashaariic la keenaa maxaa aan qabanaa midna ma jirin tiimkiisa. Waxaas oo dhan waa la ogaa waan u dulqaadanayna ummadda Soomaaliyeedna waa u dulqaadanaysay dadka qurbaha qaxootiga ku ahaa oo dhibaataysan see loo soo celiyaa see dhul loo siiyaa see shaqo loogu abuuraa ma leh. Marka taas xisaabtaas kolley hadda ayaga la xisaabtamaysa ma leh tiimka Xasan Sheikh kolley ilaahay baa la xisaabtami doona waxay sameeyeen hadda waa la ogyahay. Haddii aan kasoo gudbo taas ummadda Soomaaliyeed waa iska bal odaga waxaa la lahaabay tiimkiisa film bay noo shideen muwaadinimaha 7 bay nagu celiyeen waxaa la ogaa Ethiopiaanka oo sanadka hore Muuse la yiri wuxuu u saxeexay badda Soomaaliya in 50 sano muddo ay ciidankooda yimaadaan badda halkaasna saldhig military laga siiyay iyo meel ku ganacsadaan. Marka arrinkaas ayaa buuq badan keenay filmka wadannimada noo shidan tiimka Xasan Sheikh tag team Xasan Sheikh taas horta ka mid ahayd oo Fiqi iyo ragga uu hogaaminayo ninka la yiraahdo Cali oo wasiir dowlaha iyo rag kale oo professor oo durbaanka garaacay Xasan baa jira oo hadda shirkii Ankara ka dhacay yiri heshiiskaas Soomaaliya badbaadiyay uu saxan yahay markiiba sababta qofka marka uu
dembi sameeyo waxaa jira dad durbaanka u garaaca. dembi waxaan ka wadaa marka khiyaano qaran sameeyo. marka khiyaano qaran ayay ku dhaceen tiimkan. hadalkan soo koobo walaalayaal waxaa marka wada ogeen filinkaas durbaanka oo noo shidnaa filinkaas maaragtay fegaha oo maaragtay ahaa muwaadinnimada noo daarin team tag xasan sheekh tiimka xasan sheekh maaragtay noo shideen inuu filinkaas huhaa ahaa iyo been. marka filinka muwaadinnimada ahaa oo shacabka muqdisho la abaabulayay badeena taaka kamid lama qaadan karo. gudoomiye wadaalo soo abaabulayay axmed fiqi isbartimada waa asaga ka hadlay. madaxweynuhu waa asaga aljazeera laga wareysanayay, sky news laga wareysanayay, tvda caalamka o dhan laga wareysanayay, aljazeera af carabi laga wareystay, idaacadan laga wareysanay way ku yartaa oo intaa uu lahaa badayada taaka kamida nus kamida Ethiopia ma qaadan kardho, mana la siin karo, mana yeelayno, mahan anaga iskale, ummadda Soomaaliyeed iskale, ma aqbalayno, maamul goboleed ma bixin karo, heshiiska la galay Soomaaliland heshiis khaldanahay. hadda waxaas oo dhan waxa weeye waxa farxad ba ummadda Soomaaliyeed ugu filneed markii Muuse bixi xilka laga wareegay oo la doortay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro. ummaddu waa nafistay. waxaan looga Ciro nin mowqif leh oo Soomaali inuu yahay oo bad Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed uu soo bixineen. marka sidaa daraadeed waxaa lala yaabay ninka la yiraahdo xasan sheekh oo Ciro oo dooran markaa 7 beri miya ma aqaan mise 6 beri buu wax ku telefoon loo diray sirdoonka ay u direen Soomaaliya Sambulsho la xiriireen Ankara ay dhaheen madaxweyne xasan sheekh wuxuu doonaya waa hal la galo dowladda Ethiopia. marka xasan sheekh inta tiimkiisa Ankara la hadlin waxa ka soo horeeyay tiim kale oo dhinacaas maaragtay Imaaraadka meelaha soo marmaray oo dulaalina waxoogaa sandareer fiican waday lacag fiican maaragtay la sheegay ilaa 150 milyan $200 milyan laakiin wajiga koobaad hadda la bixiyay wasiirkii batroolka waxaa lagu ceyriyay lacagtii maaragtay badan uu soo saxay qayb kamid markuu qaatay madaxweynaha uu ku yiri war lacagtii waxa la isku ogaa in Imaaraadka lagu shubay ahayd qayb xasan haaf baa lacagta loo keenay marka waa caddiga inaan sheego. marka uu yiri inta saaxiib ahayn wada soconay qaybtaasna ana qaatay saasa markii wasiirka lagu ceyriyay meeshan hadda fashil iyo ceeb dhex fadhiyaan tiimkan hadda uu halka sano u harsan yahay. marka qodobkan ku soo noqdo walaalayaal ama lacag qaado ama maaragtay dareer qaado ama wax qaado aday ku taala laakiin dhulkan dhul Soomaaliyeed weeye. ilaahay wuxuu ku abuuray dad Soomaaliyeed, deegaankan dad Soomaaliyeed baa iska leh. maamulkaas Cabdiraxmaan Ciro hogaamiye ayaana hadda meesha dhulka ka taliya sida wada ognahay. marka uma maleynayo ama mana dhici doonto insha Allah in Ethiopian maanta in loo keeno uraago iyo Oromo iyo dad maaragtay aan soo dhaqan ahayn, isku dhigaan ahayn, isku diin aan ahayn in loo keeno oo badda ummadda Soomaaliyeed cagaha soo galiyaan. haday loo yaacdo iyo lagu hayo cagaha soo galiyaan birina waxay tagayaan caluula iyo qandalo iyo isku shuban iyo xaabo iyo maxaa la yiraahdaa iyo feen iyo boosaaso iyo garacad iyo hobyo iyo kismaayo iyo muqdisho yaa u diidaya iyo raas gambooni yaa u diidaya maraakiibtooda joogaan wadankii waa lagu qabsanaya. marka waana hurdada ummadda Soomaaliyeed ka kacdo loo baahan yahay oo la isbaraarujiyo oo qabyaalada iyo waxyaalaha raqiiskana laga tago iyo sandareerka yararka oo qofka kale lagu taageerayo oo ay qarannimadu kula weynaato. waa aragtay Zambiyaanka iyo dowladda Tansaaniyaanka soo marsan iyo Koongileeska aad maalba caaysan waxa la weyn qarannimada sharlaan ma socon ka dhid waa aragtay dastuurka waxay ka duwan waxa weeye qodobka ku qabanaya qodobka 6aad baa lagu leeyahay baa ku qabtay firqada 8aad istorka 03 firqada 7aad 176 baa ku qabatay lagu leeyahay. waa nin dalkiisa shuruuc u sameystay oo jooga Hindiya inta tagtay oo Hindiya oo Ilaahay aqoon dastuur ba sameystay waa ismaamulaan waxaan ku weyn Hindi baalkii in wadankooda leeyahay Hindiya leeyahay wadankeeda salahayn anaga maxaa nagu weyn dad Soomaalinahay ma qaxootinimada nagu weyn ma Amerikaanimada nagu weyn ma Ingiriisnimada nagu weyn. marka halkan soo koobo ala kulli xaal nimankan khaainimo ku dhaceen tiimkan xasan sheekh iyo ninka la yiraahdo uu hogaamiyo fiqin hadda wuxuu soo sheegay bayaan uu soo dhigay Twitterkiisa in badda la siinayo Seylac iyo ilaa lagu hayo dhulka Ethiopia la siinayo halkaasna maaragtay dekadaas in Soomaaliya maamulayso waa been Soomaaliya maamulayso meesha joogayso wata ma in runta la isku sheego fiican moogta walaayo. marka waxaan soo qaadan doonaa nimankan khaaimiinta oo dalkii dhulkiiba gatay oo ummadii badbaadiyay awalba nationalitygooda shaki ku jiray inay Oromo ahaayeen inay Ethiopian ahaayeen baalkii Ethiopia Soomaali dhalad ay ahayn shaki baa ku jira sababtoo qof Soomaali dhalada
nationalitygiisa iyo territorygiisa iyo dhulka iyo hantidu leeyahay iyo dhiiggiisa ma bixin karo ceeb weeye